fadlan hanaga baqiilin inaa follow page-ka noo dhacdo siina faafiso muuqaalka mahadsanid. War-saxaafadeed hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA ayaa gacanta kusoo dhigtay 28 xubnood oo 25 ka mid ah ay doonayeen inay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Xubnahan oo watay gaari nooca loo yaqaano caasi kana soo baxay deegaan hoostaga degmada Afguuye ayaa gacanta ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soo galay xilli ay doonayeen inay u tallaabaan gobolka Shabeellaha Dhexe sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. 28 qof ayaa kala ahaa darawalkii gaariga kaxeynayay, 2 caawiye ka ahaa gaariga, tiriishbooygii iyo 25 iskugu jira caruur iyo rag dhexdhexaad ah, kuwaas oo qirtay in loo waday in la askareeyo kuna biiraan kooxda Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa waxa ay hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka kusoo gabagabaysay in ay ka go'an tahay in markasta iyo meel kasta ay ku beegsato Al-Shabaab oo ku howlan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed.